السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأركسن VIP channel maanta waxaan ka hadlaynaa reerka ugu aqoonta badan ee wadankani Mareykanka saddexdani gabdhood waa 18 jir iyo 16 jir iyo 17 jir oo haddana haysta heerkii ugu sareeyay jaamacadda Mareykanka ah ilmahani waxay ka kooban yihiin 9 caruur ah 3 gabdhood iyo 2 wiil hooyadood waxay shaqada uga tagtay in ay ilmahoodii wax barto ay waxbarashada heer sare ka gaarsiido ilmahani waa ilmo madow ah especially markaad madow tahay waad ka liidataa dadka kale ee wadankani u dhashay saddexdani gabdhood oo gabadha ugu weynay hadda 18 sano ka baxday ta kalena ay 18 tahay tan yarna ay 16 jir tahay waxay intoodii kala noqdeen gabadhani 18 jirka waxay barataa Healthy and Secretary Human Service ayay master u wadataa oo waxay ka shaqeydaa Healthy and Human Services gabadhani kale waa 18 jirka hadda 19 sano gashay waxay u shaqeydaa ayadana Housing and Urban Developmental oo guryaha iyo danaynta dadka bulshada gabadhani yar 16 jirkaana waxay master u qaadatay hadda ay bachelor ka dhameeyday in ay noqoto Supreme Court Justice ilmahani madowga ah ayaa hadda waxa ku soo badanay 2016 in guriga wax loogu dhigo ee gabi ahaanba laga joojiyay in ay iskuulaadka tagaan sababta oo keentay ilmaha madowga in hoos loo liido ilmaha kalena ee waxbarashadoodii oo kor loo qaado hooyooyinka madowga ah dacwooyin badan ayaa uga yimaada xagga waxbarashada iyo iskuulaadka markii ay ilmahoodii soo gaaraan 10 sano oo waxa laga keenaa dacwooyin aad u badan ilmihiyo maxaa la yiraahdaa cuqdad lagu abuuro in taariikhaha madowga si qaldan ilmaha loogu dhigo ileen taariikhdu madowga kama bilaabato kaliya gumaysigii ka dhacay wadanka Mareykanka sababtoo ah ilmahan Mareykanka waxa la yiraahdaa American history ayaa niila dhigaya sababta oo ah taariikhda kaliya oo madowga ahne historyga hadii la fiiriyo waa gumaysigii oo la bilaabay 1619 ayuu gumaysiga Mareykanka bilaabay in dad Afrikaan ka soo qaado qaaradda Afrika si uu halkaani uu slave uga dhigto uu gumaysto uu ku shaqeysto 1865 gumaysigii wuu dhamaaday oo Abraham Lincoln ayaa wuxuu dhahay qof dambe madooba lama gumaysanayo xuriyadoodina hala siiyo 246 sano qof dad dhan qowmiyad dhan taariikhdooda may ku koobnaan kartaa waa maya so that's why ay iskuulka ka bilaabaan in ay ilmahaaga ay ka dhaadhiciyaan inuu slave ahaan jiro awoowihiis ama kalarka uu ka soo jeedo ilmahaaga yarka marka wuxuu bilaabayaa inuu caraysnaado inuu xanaaqo because waa ilmo lunsan especially markii aad fiirido ilmaha Soomaalida waa ilmo aad iyo aad u lunsan oo wax taariikha lama baro ilmaha halkaan ku dhashay awoowihiis taariikhdiisa ma yaqaano aabihiis halkaan uu iska imaaday asagoo cararayo awoowgii ka sii shisheeyay ma yaqaano halkaan uu ilmaha yar ku weynaaday head start preschool first grade uu aaday ilaa adiga ilmahaaga xoogaa wuxuu safe ku noqonayaa galaaska afraad shanaad maalinta uu gaaro ilmahaaga dacwadu way bilaabanaysaa because waa meeshii waxbarashadii xoogeeda iyo taariikhii adduunka ay ku bilaaban lahaayeen laakiin Mareykanka taariikh kale ilmahaaga uma dhigayo wuxuu u dhigayaa taariikhda Mareykanka leeyahay guulaha ay soo hoyeen madaxweynayaashii Mareykanka ka jiray iyo sidii madowga loo gumaysanayay marka galaas dhan oo ilmo indhayara ilmo maxaa la yiraahdaa Mexican ilmo cadaana ay ku jiraan iyo ilmo madow ama Soomaali any color laakiin qof madow ah la yiraahdo madowga waa la gumaysan jiray maxaa la yiraahdaa saaba lagu sameyn jiray naagahooda waa la kufsan jiray madowga saaba loo garaaci jiray gacmaha laga goyn jiray ilkaha laga saari jiray waxa laga baqi jiray inay dadka qaniinaan waa run qofka markuu lugaha gacmaha ka xirta afku kula raasana soo marka xitaa ilkaha waa laga saari jiray waxa la dhihi jiray oo ameen qaniinaan soo marka ilmahaagi 12 maanta adigu ku caraysnaanaya 12 maanta adigu ku caraysnaanaya wuxuu leeyahay iga aamus
ilmahaaga yar ma arkin sharab yaa waxba noo sheegin naca meel kale uu ka careysan yahay ma ahan inuu wiilkaaga adiga kugu caasiyay ama gabadhaadi kugu caasiday laakiin dhibaato iyo ciriiri xagga iskuulka ilmaha ka haysto ayuu waalidka kugu soo jeesanaya oo 12 maanta ilmahaaga uu kugu careysnaanaya marka hooyadani looyarad bay ahayd way iskaga tagtay shaqadeedii gabdhaheedii focus ka saartay 6 gabdhood iyo 3 wiil wax easy oo lagu dhaxdeyn kara bulshadan Mareykanka ama iskuulad oo free ah ilmo loo diri kara ma ahan because waa meelaha ugu adag ee ilmaha lagu loos gareeyo markay gaaraan galaaska 5 ilaa 6 7 ilaa high school ilmahaaga waa meesha kaliya ee lagaaga qaadanayo nacam cunug lagaama qaadayo laakiin cunug nadiifa kuuma soo baxay ma aragtay ilmaha markay high school bilaabaan waxaad arkaysaa ilmihii waalidkiis iska weynaysiinayo Soomaalida caaynayo oh my god these Somali people oh my gosh afkiisaba Soomaali iyo nacam yasitaan uu bilaabaya ma ahan inuu adiga ku yasayo because asaga kalarkiisa laga soo horjeediyay kalarkiisa yaa lagu diray dadnimadiisa yaa la nacsiiyay soo marka cunugu wuxuu bilaabayaa in uu Soomaalida dhaho dadkaani Soomaalida waa crazy people waaye Soomaalidan waa saan dhaqan ma lahan discipline ma lahan because he doesn't have any history taariikh ma lahan in meel uu ka imaado oo ruud ama la ani meeshan ka imaado waan aqaanaa Soomaaliya ku dhashay awowayaan soo arkay awowihii kaleetaan aan maqlay awowihii kasii horeeyaan maqlay waa la iigaga sheekeeyay aabihii dhalay aabihii sii dhalay meeshuu ku duugan yahaan aqaanaa inuu gabyaa ahaa waa aqaanaa gabayadiisaan qaar aniga aqaanaa in uu asagoo wiil yar ah geeriyoodo waan la socdaa in uu caruur intaa uu dhalay taariikh dhulkii uu ka dhintay and I love it illa hadda waxaan dhahaa waa inaan soo booqdaa meeshaasi oo dhacam sheekadaas ka dhacday aan inaan soo arko because waxaan ogahay meel ayaan leeyahay aniga meel baan ka soo jeedaa dad baan leeyahay laakiin ilmaha halkan lagu dhalayo meel ay ku salaysan yihiin ma jirto ma haystaan nacam identity nacam meel ay sheegan karaan gaaladii markay dhax galaan waxa la leeyahay cunugii madoobay Soomaalida markay soo dhaxgalaan waxa la leeyahay ilmihiisay wallaahida ahay Sooma ahan wadankii markaa geysan waxa lagu leeyahay ilmihii diasporada ahay soo marka ilmahaaga halku sal iyo baar u waay marka ilmahaaga waa inaad sal iyo baar u yeeshaa ilmahaaga isku day inaad Afrika xitaa 3 bilood soo tustaa waa isku day inuu waalidkooda soo arko isku day inuu carra soo arko iyo dhulkiisa isku day in uu dad iyo meel uu ka soo jeedo bari leeyahay uu halkaani ay u tahay meel uu ku meel gaar ama meel uu ku noolaan karo laakiin meel uu ku nagaadi karana ay tahay meesha uu ka soo jeedo soo marka ilmahaaga markii loo dhigo kaliya taariikhdii dhacday 1619 iyo 1865 246 sano waa 4 farac ma annaga Soomaali markaan nahay 4 farac ama 5 farac bay taariikhdeena ku kooban tahay kuma koobna annaga taariikhdeena 4 farac waa aniga aabihii dhalay iyo kiisii dhalay waa ka badannahay intaas waana ka fac weynnahay waana ka qiso iyo taariikh weynnahay laakiin markii la dhahaa slavery-ga neelaga sheekayna waa 246 sano waan ka weynnahay annaga intaa waana ka badanna waana ka qiso badanna soo marka ilmaha waxa fiican reerkani hadda ee caalamka Mareykanka gilgilay ee gabadhoodii 16 jirka ahayd hal week ku qalin jabisay shahaadadii high schoolka iyo shahaadadii waxa isku qaadatay maxaa la yiraahdaa college-ka ah ee hal maalin isku qaadatay waana 16 jir imagine 16 jirka Soomaaliga ah xaguu maraya high schoolka oo daan ku yahay uu waxba ka qabsan karin uu waxba ka hayn karin oo maalin walba principal lagu ballaminayo adigoo og wiilkaaga in uu 100% uu fiican yahay waa meesha ilmaha daroogada lagu baro waa meesha ilmaha lagu kala sareysiyo waa meesha ilmaha lagu qaldo waa meesha ilmaha lagu soo diro wariya ilmaha homework waxa loo soo siiya soo qor hooyada iyo aabaha
أنا وحبرشة هيرك أي جارين نصقر هاي جامعة ده فريس سكول ما فريس جريد ما يسي سكول ما آذن نقطك نقل كرتك ورقدها يوحل وريجيس because عنقي ماشي زيرو وقراء بالرواية سووا فريسنا سيركل بالله ولا شيء سنة هو إذا حلقة كصوب حدا I don't know وسكله ما قرنا أنا ضاف بلا المي كان هو إذا واللوير هو إذا ونيرسر هو إذا ومحل يرى مانجر هو إذا وكن هو إذا هالكسبكة لا ويل كاني homogiisa I don't know kusoo koobaya because he doesn't want to talk hooyadii markuu soo weydiiyeen or iga dhaqaaqay tir ama waxay leedahay waxba kama soo bixin hooyo aniga hooyan zero anahay zero ii qor cunugu xanaaqa wax u sheeg inaad Soomaali wax ku soo barato inaad wax soo barato igama dhaadhicinaysa Soomaalida halkaan joogo qof wax meel tago wax soo barto kuma jiro I know inaad leemanka ku wada imaateen waxba ma qoro waxna ma akhriyo واي يا كوكلفة قعنتك هاي لكن أديك bad example عنقاق أصيف ذي سلي وسقيسن ما ركت أصيف ذي أو حتى أنا جوحا ما صابرني معلن كساس وشاك عنق مركب المي فيس ورح فريستو هو يديس هم وجه وككين الهاي زيرو نقطة بيس وككين الهاي زيرو نقطة المهاس معلن بمعلن قدم بيدو قربيه سهوس أصيفور سمايان وسoo foorsama ilmaha qaarna waxa ku dhacda aamusnaan ilmaha qaarna waxa ku dhacda cara iyo dagaal ama macallimiintu la dagaal ama adoo kula dagaal ilmaha qaarna waxay bilaabaan inay adigana ku yasaan Soomaali markay arkaanaba ay yasaan iska weynaysiiyaan marka waxay isku daydayayaan nacam inay dadkan kale ay la mid noqdaan because mar rabaan adiga iyo wax la mid ah inay xiriir la yeeshaan adigana way ka faanayaan محل الصومالي ودون ويكفان فانا قبل خديت أقول I don't like Somali people I don't associate Somali أنا Somali مسكو حرحري محا دعو سكو حرحري ويس أبرتاها بإيه سومرك عنو منو إسكا وينيسينا هالكاس إيجا مرة وكلها منو بإسكا آموسا يميلو وحكا قبت مركو وايو وحو إسكا نقنا عنو إسكا قشوعي وشبده مدنا وبعاي كمي ودغالمي سيبا waxaan u dhaceen u taagan yahay islaantii ku boodi odayga durbu ku boodi maxal jira macalinka uu ignore gareyn uu la dagaalami dagaalu meesha iska wadaaya because wax aan ma badhici kartu taagan yahay qaarkoodna waxay ku leeyihiin waxba hay ugu soo darsan waxba kugu darsan maayo qaarne daroogada isku dhiibaan waxay leeyihiin waxaan u dhan aragtaa meel yar oo lacag ka sameynaa ma arki karnaa $100 maalintii ma rabtaa ha that's it daroogadiisu dhinac ka galaya cunug nadiifa marka high school ka ma ka soo bixin college ka markuu tago cunug high school ka soo baxay oo wadanka u dhashay lagu leeyahay ESL baa loo dhigaya English as a second language afki Soomaaliga ma yaqaanay waa ESL cunugayga loogu dhigaya ilmaha qaar saacadii 2 saac galaasyo qaasay leeyihiin oo Englishka looga soo dhiso waa idab dara lacag gooni ah laga sameeynaa waxa leeyahay cunugan Englishka ku yar soo marka Englishkan ka dhiseena hooyadaani marka waxa ay sameeyday qisadani waxaan ku soo qaatay reerkan Bush la leeyahay oo idaacadaha adduunka qabsaday hadda dadka madowga ah waa ay badatay in ay ilmahoodi ka dhigaan home school ilmahoodi waxay bilaabeen in ay guriga wax ugu dhigaan sababtoo ah waxay ogaadeen in ilmahoodi aanan waxbarashadii laga qabtireynin oo ilmahoodi lagu ridaayo jahawareer iyo waali iyo in ay iskuulka drop gareeyaan ay ka cararaan gabdhihii ayagoo yaryar ay iskuulka uur ka qaadaan wiilasha ayagoo yaryar in ay darooga ka bilaabaan because waxaa meesha loogu qorayaa ilmahani waxa waa agteedo safe ma ahan cunug ag fariisan kara male laga kala cararo Professor Charlie waxay ka shaqeeydaa University of Florida waxay tiraahdaa cunugaaga ama private school ha dhigto ama public school ha dhigto waa kii la kulmay dhahday in midabkiisa lagu takooray dhahday sababtoo ah midabkaas maalintii xurriyadda la siiyay lama anaga xurriyad buuxdana lama siinin bay dhahday xurriyadda afkaas baa nagala siiyay oo ilaa iyo hadda maskax iyo lugaha iyo meel walba waa nagala dagaalamayaa sababtoo ah waxaa la sameeyay in dadka madowga ah ilmahooda public schoolka markay u soo diraan in uusan cunug nadiif ah uusan halkaas kala bixin cunug yaro 4 jir ama 5 jir ayaad ku soo dhaxdaysatay maalinta uu ilmahaagi uu gaar 12 adiga
sideed sano hadduu mujtamacaasi uu ku dhex jiro waxaa soo baxayo cunug 3 waji wata 3 mid buu noqonayaa inuu ilmahaaga daroogada raacayo gruubyada daroogada in uu cunugaaga iska aamuso shutdown ku dhaco iyo in uu cunugaaga adiga kula dagaalamo ama iska kaa weynaysiiyo intaa cunug aha kaaga soo baxayo cunug saddexaad kama soo baxsanays mid su'aalo ku weydiinayo way Soomaali saan u sameeyo way marka cunuga su'aalaha ku weydiinayo wuu qiimeyn ku jira waxaani marunba ma saxba marunba markii dambe markuu ogaado hooyada ama aabaha in aysan jawaab sax aysan sii karin cunugaani wuxuu isku dayayaa in uu xiriir la yeesho macallimiintiisa iyo dadkaas si uu uga helo waji adigana oo ku yeeso bari adiga dhalay adiga ka dhashay ku yeeso adduunyada maxaa ku haray wax ku haray ma jirto marka maamadani shaqadeeday uga soo tagtay ilmaha 9 caruur ahaan dhalay tiraaday way adagtay tir in 9 caruur ah lagu dhaxdeeyay tiraaday streetka ama jidkan Mareykanka because waxay qalqal ku yihiin bay dhahday umada kalarkooda dartood ma ahanay tir ilmeyga inay dagaalamaan laakiin kalarkooda dartood ayay dadka waxay ku yihiin bay dhahday qalqal iyo argagixiso saa darteed ayaan aniga shaqo iskaga dhaafay bay tiri oo ilmeyga aan u bilaabay waxbarashadoodii xitaa aniga dhinac baan kala dhiganayay bay tiraada ilma yar kaligiis waxbaro ma yeelayo mara fududo bay dhahday in aad 9 qofood aad hal mar wax wada bartay dhahday waxbarashadu maxay tiraada wax saacado badan qaadanaya ma ahan bay tiri waa saacado yar yar oo fudfudud laakiin waxay dhahday ilmahaaga markaad iskuulka u diraysid ma ahan intaas oo saacadood inay wax bartaan kaliya waxa wax loo dhigaa bay tiraada saacado yar inta kale tane waxa ilmahaaga la baraabay tiraada ciyaarta iyo orodka iyo maxaa la yiraahdaa in cunugaaga maxaa la yiraahdaa oo maskaxda laga wareeriyo ilmaha markii hal saacad ka yar 45 minute galaaska ama 30 minute uu yahay inta kale banaanka ku carxararaa la dhahaa banaankaas maanta oo dhan isku bursanayaan orodkaas ku dhameysanayaan inta kale waa sheeko oo waa la wareysanayaa waxa lagu leeyahay waa maxaa la dhahaa waa maanta waa education waayo hal is wareysto maxaa adiga haysaa maxaa ogtahay nacam cunugaaga markuu history lahayn taariikh lahayn waxa uu ka hadlo way yarta guriga markuu imaadana TV ya loo shiday TV kaas iska fiirsanaya wax taariikh ma hayo wax new oo maanta ku soo kordhana mana iskuulka haduu ka yimaado program kale ilmaha Soomaalida badana looma sameeyo just guriga haduu imaado hooyada inay shaqo aada laga yaaba ama ay tiraado TV gaaga iska fiirso iskuulka markuu ku laabto wax uu wax ka qoro ama wax uu ka sheekeeyo malahan laakiin anaga nasiib baa lahayn markan habeenkii iskuul iyo quraan waxaan soo dhameeyno maghribka kadib waa sheekeysan jir sheeka xariir waxa jiri taariikhahaas ka sheekeyn jirn habeenkii caawiya sheekada ku qoran ayay iyo awoow ku sheekeenayo maxal xiraalayaasha googa cigalle wax badan aan anaga helnay aysan ilmaheena heli karin mostly hooyada iyo aabaha halkaani maba rabaanba family hooyadana meel bay u cad aabahana meel baa u cad especially aabayaasha nin walba meel baa u cad wuxuu isleeyahay Afrika hadaa tagto 18 jir aad guursanaysaa ayadana waxay leedahay wax yar oo lacag hadaa hesho cidii abaarta hayso ka soo tagtaa dad wax siin lahayd ama hadad ayadaaba mostly hooyooyinka roono guri iyo ilmaha future u yeel iyo waxaas wiilka haduu gabar ii guursan lahaa gabadha hadan Afrika geeyo wiil ku dar guur waxa ka horeey ilmahaaga future-kiisa ilma yaro iska diyaas baraad Afrika geeyo wiilkii aad gabar ku soo dartay gabartii wiil ku soo dartay taasna a future iyo history ma aadan barin taariikhdii ma aadan barin ilmaha qaar programyada guriga loo dhigo Charlotte Mason waan ka hadli doonaa iyo Warlat programyadaas ayaa ilmaha guriga wax loogu dhigaa dadkan Carabta ah ee wadankani joogan ma arkaysid qof Carab ah oo ilmihiisa public school ama private u sii wado ma arkaysid qof maxaa la yiraahdaa Yahuuda oo ilmihiisa maxaa la yiraahdaa public school ama private school u sii wado ma arkaysid
because familka waa laba qofood labadii qofood qof kamida waxa loo deynayaa ilmahaasi waxbarashadooda because Jewishka waxay dhahaan waa dad adduunka laga takooro haddana waa dadka adduunka ugu horeeyo caalamka hogaamiyo dadkana carabta sidoo kaleeto cunuga waxay ku leeyihiin luqadda carabiga guriga ku baraan quraankana way baraan waxbarashadii kale way baraan ilmaha carabta kaliya waxaad ku arkaysaa jaamacadaha even college-ka cunug carab ma ku arkaysid haddii kale dual class buu diyaarinaya asagoo high school ku jiro ayuu wuxuu diyaarinaa galaasyada la yiraahdo dualka ah oo asagoo high school ku jiro ayuu sii dhigan karaa bas meeshas inaad ku aragto carabka waa laga yaabaa high schoolna kamuusan imaanne gurigiisu ka imaado hooyadiis ama aabiisa u saxiixeeno galaaskaas wuxuu ku dhigtaa under his mom and dad signature buu ku dhigtaa oo ayaga saxiix laga soo qaatay dartood ayuu ku dhigtaa because age-kiisa college ma gaarsiisno ilmahaas carabta kaliya waxaad ku arkaysaa university jaamacadaha markaad tagto inaad carab aragto waa macquul isbitaalada markaad ka shaqeydo ilmo carab oo training loo keeno dhaqaatiirta la socdaano nursing bachelorka la socdaano wada arkaysaa laakiin daawo hadday kuu qabato daawo ilmaha carabta public school lama geeyo kama hadlayo carabtani hadda soo qaxdo Syriankan iyo kama hadlayo carabta saxda ahaan ku sheegaya Lubnaan maxal Cumaaniyiintan oo kale iyo